doorashadii 2005 aan galnay waa markii uu horeysay ee doorashadeennana ay foreign investment soo gasho nabadgaraysta madaxweynihii markaa lagu soo doortay maxamed xaji ibraahin cigaal waa madaxweynaha qura aynu odhan karna ee Somaliland soo maray ee ay u cadayd waxa uu qabanayo iyo halka uu u socdo ee aan mar kastaba ka sheegi jiray madal kasta uu joogo marxaladda uu dalku marayo iyo marxaladda la joogay marxaladda u xigtay u socoto waxaynan macquul maraba noqon kareenin inaynu dhahno dimuqraadi uu dalku noqonayaa iyadoo xisbiyada tartamaya aanay dimuqraadi ahayn marka dad dictator raahi inay nidaam dimuqraadiyo hagaagsan inoo keenaan macquul ma waxa ku soo gabagabeynaya booliiska dad markay soo qabtaan waxay leedahay maxaad ku soo xidheen waxay dadku kicin dadweyne dadku inay ka caamiyaan miyuu seexinaa dadka waa nidaamkii siyaad bari ma ogtahay siyaad bar marka la yara kuweeshan gareeyo dadka inta soo qabtaan oo hebel maxaad ku haysaa kicin dadweyne kicintu waa wanaagsan laakiin dadku kacaan oo ay danahooda ka fikiraan oo yaahdaan wadadu way dalooshaay biyo la'aan baan hadda xaafadan oo kale haraad ba iska hayo laakiin booydahooda iska shubtaan ma ogtahay no matter inay biyo jiraan iyo in kale ma oran karayaan waxaan u baahanahay biyo I agree sida uu analyze gareeyay guuleed dad aan dimuqraadiyadda jecelayn baa jira saddex kooxood dimuqraadiyadda ma jecel weligeedna saasay bal dib u akhriyo thousands years ago markii la sameeyay dadka power kaliya ma jecel dimuqraadiyadda waayo dimuqraadiyadda waxay power ka qaadaa dadka madaxda leh oo waxay ku soo celisaa dadka caadiga dadka madaxdana waxay soo haystaan dadka kale inay caamo yihiin oo aan lagu aamini karin kuraasta marka inay iyagu isku dhijiyaan bay jecel yihiin marka madaxdeena siyaasadeed ma jecel dimuqraadiyadda madaxweynaha baarlamaan xisbiyada ma jecel waayo haddii dimuqraadiyadda waa la xisaabtamaya waxa la yiraahdaa mirmiraha ma taqaanaan mirmiraha reer galbeed yaa ma yihiin marmay mirmiraha waa la yiraahdaa dibi baad leedahay dibi kale aan leeyahay labada dibi la isku xidhaa ninba maalin amba laba cisho ku qotaa mirmiraha la yiraahdaa miruhu waxa weeyaan waa la miriyaa xoolaha Soomaha habeenkii waa la daajiyaa Soomaha xoolaha mirmira waxa weeyaan ninba habeen buu soo haysanaya weeyaan amba laba habeen buu soo haysanaya inay beela yiraahdaan waan mirmiraysanana xageen ka soo galnaa anagu saddex reer baaba qaybsadee laba waa garxajis midna waa habar walba haysata hadda xagee beelu ka soo galayaan taraash baan leenahay waan laaganaa ma jirtaan leenahay wax isbi leenaaba ujeedada loo galay ee magaalada Hargeysa loo gubay Burco loo gubay ma ahayn in wixii wax la mid la sameeyo istaad saasayd kuwii soo galay gubayna wayna hogaaminayaan hal la weydiiyo marka inay wixii wax la mid ah sameynayaan yeeli wax ka duwan keenay hal la weydiiyo qofan dimuqraadiyadda goleyn oo dimuqraadiyadda hadana dalka ku hogaamiye doonaya waa lamaan islahayn weeyaan dimuqraadiyaddu ma Nelson Mandela wuxuu yiri leadershipka xukunka tegiduna leadershipka wanaagsan bay ka mid tahay